Queen Hafsa ayaa maalmihii ugu dambeeyay laga faafinayay muuqaalo sheegaya in ay Hafsa Queen ka xanaaqday isla markaasina ka gilgilatay arooska Rashka Boy oo ahaa saygeedii hore. Haddaba inta aanan idin soo gudbin muuqaalkan aad ka xiisaha badan iyo sidoo kale siraha aan idin ka hayno Queen Hafsa iyo Rashka Boy wixii dhexmaray saacadihii la soo dhaafay, inta aynan muuqaalkan aad ka xiisaha badan la gudihiisa gelin, fadlan haddii ay tahay booqashadii kuugu horeysay soo booqato kanaalkeenan ansixinta wararka, fadlan subscribe noo saar, waayo subscribe waxay naga saacidaysaa in kanaalkeena meel sare gaaro. muuqaalkan aad daawanaysidna fadlan like noo saar, waayo like waxay noo tahay dhiirigelin, adigana daawad wax dhibaato kuma hayso. haddaba waxa saacadihii u dambeeyay aad u qabsaday baraha bulshada iyo maalmihii la soo dhaafay in ay bulshada Soomaaliyeed ka been abuurayaan Queen Hafsa, isla markaasina ay leeyihiin waxa ay Hafsa Queen ka xadaysan tahay, isla markaasina ka xanaaqday Rashka Boy oo guursaday gabadh lagu magacaabo Asma So Beauty. haddaba Hafsa ayaa sheegtay isla markaasina saacadihii u dambeeyay soo gashay barteeda Snapchat-ka Live, iyadoo sheegtay in aanay wax dhibaato u arkeynin in la guursaday, in uu guursaday saygeedii hore ee Rashka Boy, balse iyaduna calafkeeda sugi doonto. haddaba Hafsa Queen ayaa sheegtay in marka xaaskeeda Hafsa Queen ayaa sheegtay in marka calafkeedu yimaado ay soo bandhigi doonto, isla markaasina ay la wadaagi doonto dhammaanba taageerayaasheeda. haddaba Hafsa ayaa mar wax laga weydiiyay laguna yiri maxaad ka tiri arooska Rashka Boy, waxa ay tiri calafkiisa Allah ayaa siiyay, isla markaasina wuxuu ahaan jiray odaygii hore, balse haatan waanu kala dhamaanay, wax dhibaatana ma jirto, arooskiisana waanu hambalyeynaa. balse dadka Soomaaliyeed ayaa si xun arrintan uga falceliyay, isla markaasina arkay in Hafsa ka xanaaqday, isla markaasina ka cadhaysan tahay arooska Rashka Boy, meherka Rashka Boy. haddaba Rashka Boy ayaa si mar arrintan wax laga weydiiyay waxa uu sheegay in ay Hafsa tahay gabar madax bannaan, isla markaasina afkeeda xor u ah, balse ay waa hore nolosha wada wadaagi jireen. haddaba wiigagii la soo dhaafay waxa magaalada Nairobi ku mehersaday Rashka Boy gabadh lagu magacaabo Asma So Beauty. haddaba tan iyo intii uu meherkaasi dhacay waxa ay bulshada Soomaaliyeed aad u hadalhayeen in ay Queen Hafsa arrintani ka xun tahay, isla markaasina ay ka cadhaysan tahay, afkana furan doonto. haddaba xaqiiqada ayaan caawa soo ogaanay, waxaana aanu su'aal weydiinay Queen Hafsa iyadoo barteeda Snapchat-ka Live kaga jirta, waxaana ay sheegtay in ay arrintaasi waxba kama jiraan tahay, isla markaasina laga been abuurayo. haddaba dadka Soomaaliyeed ee arrintan u haysta in Hafsa Queen ay aad uga xun tahay arooska Rashka Boy ayaan u sheegaynaa. waxay tiri Hafsa Queen wax dhibaato uma hayo, haddii uu guursaday wax dhibaato ma leh, waxaanu ahayn waayo hore nolol wadaag, balse hadda waanu hambalyeynaa. daawadayaal intaas ayaan muuqaalkeena kusoo koobaynaa. haddii ay tahay booqashadii kuugu horeysay kanaalkeena soo booqato, fadlan subscribe noo saar, waayo subscribe waxay noo tahay dhiirigelin in kanaalkeena meel sare gaaro, ayay naga saacidaysaa. muuqaalkan aad daawanaysidna fadlan like noo saar.